baa waxa iga dhacay kelmad ah eelay miya wuxuu maxay tahay raqiiskan muxuu yahay qofku khaladna waa ka dhici karaa waxa iga dhacay marka kelmad khaladaho xamaasadii ay iga keentay anigu nin ama qabiil u jeeday ama dad gaar u jeeday ma ana ahayn waxaan ahay iimaan cabdulqaadir cabdille cabdixoosh baan ahay bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim maalmahan oo dhan waxaan ku jirnay marxuumadii saabiriin hawsheedii ilaahay ha u naxariisto ama maxkamadda ha noqoto ama aaskeeda ha noqoto ama ka warbixinteeda ha noqoto howlahaasaan ku jirnay ilaa iyo haddana ayadii baan ku jirnaa ummaddu hadday shaqaynayso waxana waa sixi kadhaa qofku khaladna waa ka dhici karaa waxa iga dhacay marka kelmad khaladaho xamaasadii ay iga keentay anigu nin ama qabiil u jeeday ama dad gaar u jeeday ma ana ahayn waxaan ahay iimaan cabdulqaadir cabdille cabdixoosh baan ahay shalay aaskii wararkii aan duubaynay iyo warbixintii gabadha iyo kiiskeedii baa waxa iga dhacay kelmad ah eelay miya wuxuu maxay tahay raqiiskan muxuu yahay marka waxa way kelmadaasaan rabaa inaan raaligelin ka siiyo meel ay joogaanba nimankan maxay tahay reer koonfureedka raalli ka ahaada kelmadaas waxaan ahay iimaan cabdulqaadir cabdille cabdixoosh anigu waxaan rabaa ummadda ilaahay oo muslimka ah iyo soomaaliba inaan u noqdo nin dhexdhexaad u ah oo isima nin qabiilna ma ahi nin qoysna ma ahi ilaahay iyo anigaan isla og taas cid kastana waxaan rabaa inaan sidaa ugu shaqeeyo marka meel aad joogtaanba hadalkaa iga dhacay raaligelin iyo abalajays baan ka bixinayaa waana ka xumahay raalli ka ahaada meel aad joogtaanba taa intaasaan ku dhaafayaa midda kale oo aan ku darayaa waxay tahay qodobka kale oo aan ku darayaa waxay tahay oo aan raba inuu gaaro madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni oo ayaantaa ku mashquulsanaa buurihii Calmistaad iyo dagaalkooda waana waajib muqaddisa in lagu mashquulo oo la iska dhiciyo nimanka nagu soo duulay waxaan u gudbinayaa madaxweynaha taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Mudug waxaanu ka nahay dacwaanu ka nahay qaabka gabadhan ay u dhimatay iyo laalaabka u geliyay waxaan rabnaa ninka gobolka in haddii Ilaahay idmo laga bedelo haddaan